بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وموضوع كمذا مواضيع ذني أها قفك مسلمka in waaqica iyo nolosha hadba xaaladiisu taagan tahay mustajaadaadka iyo wixii cusub lagala hadlo waxaa jira xanuunkan la yidhaahdo coronavirus oo dunida dhibaato badan ku haya oo noqday xadiidu saaca oo noqday mushkilada halaca iyo argagaxu maanta uu ka jiro oo ay ku xaqiiqowday ina alinsaana khuliqa haluucan idaa masahu sharu jazuucan wa idaa masahu alkhayru manuuca xanuunka aad aragto in madaaraadkii adduunka la xidhay in la xidhay siinimaayadii in la xidhay kuratulqadamki iyo meelihii lagu ciyaari jiray in masaarixdii iyo andiyadii iyo meelihii lagu shiri jiray oo dhan la xidhay meelihii ugu basharka badnaan jiray caalamka inay yihiin khaali xanuunkan ka dhigay magaalooyinkii yurub ugu tacmiirka badnaa ashbaax ka dhigay iyo meel aad mooddo inaan weligeed la degin kaan lam takun bilams xanuunkan muujiyey qudradii ilaahay ee aad aragto in dad badan oo madax ka ah duwalka awoodda sheeganaya maanta ay leeyihiin xuluushii dhulku waa dhammaatay ee waxaa la sugayaa xuluushii samada xanuunkaas muxuu yahay mowqifka uu ka qaadan karo qofka muslimkii qofka muslimka ahi waxaa laga rabaa inuu ka qaato mowqif haabita oo ka duwan mowqifka uu ka qaatay caalamka kale inuu xusuusto qur'aanka kariimka ah قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون آيات كاسودان قار كميدي waxayna tusayaan waxaan ilaahay ku qadarin inaanay kugu dhacayn wixii ilaahay ku qadaraana inaanay ku garamari karin xadiidkii cabdullaahi ibnu cabbaas uu nabiga ka wariyay ee ahaa ixfid illaaha yaxfadak waxaad ogaataa kelimaad baan ku barayaa buuhi nabigu calayhi salaatu wassalaam wixii ku garamaraay kuwa kugu dhici lahaa ma aha wixii kugu dhacaana kuwa ku garamari lahaa ma aha hadday bani aadamku u kulmaan inay ku dhibaateeyaan waxaan ilaahay kuu qorin kuguma dhibi karaan wixii ilaahay kuu qoro baa lagugu dhibi karaayoo dunidan ku dhibi kara waxaan ilaahay kugu anficin kuma anfici karaan hadday basharka oo dhani kulmaan mowqif haabita qofka muslimkii inuu leeyahay baa lagama maarmaana muxuu tilmaamay nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam arrinta ku saabsan mowduucan oo kale marka laga hadlaayo nabigu horta wuxuu tilmaamay laa cadwa walaa diyara istallaalidii inaanay jirin oo qofku xanuun uu qaba aanu qofka kale ku tallaali karin laakiin biidni illaah buu ugu tallaali karaa diyara iyo baasaysi inuuna jirin laakiin uun maxaanku idhahdaayay haddana is-ilaalini ay jirto xadiidka laa haamata walaa safar walaa inta kale sii wad nebi moxamed nin baa xadiidkaa ka maqlay acraabiya markuu yimid wuxuu ku yidhi geela waxaan aragnaa buuhi anigu geel baan dhaqdaa waxaan arkaa buuhi geela awr cadhalihi inuu yimaad dabadeedna uu awrka cadhalihi geelaa maxaanku idhahdaayay qaadsiiyo nabigu wuxuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam taasi inay qadar ilaahay tahay rasuulku wuxuu sheegay lan tamuuta nafsun nafi inaanay dhimanaynin ilaa ay dhammaystirato arsaaqdii loo qoray iyo wakhtigii loogu talagalay adoo urka hooyadaa ku jira qadarta laguu qoray taasina diidi maysa alxayda walxadar inaad qaadato nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi oo uu tilmaamay fari min aljudaam aw kama qaala sala allahu calayh wasalam baraska ka carar sidaad uga cararto maxaanku idhahdaayay libaax hadduu kugu soo baxa oo kale xanuunada qaar inaad uga cararto xanuunadan masaayibta aidiska iyo aboolaha iyo karoonaha iyo waxyaabaha lamidkaa inaad ka cararto nebi moxamed dhinaca kale ina faray calayhi salatu wasalaam adoo yaqiininaya waxaan qadarta ilaahay ahayn inaysan kugu dhici karin wixii ilaahay kuu qadaray uun inay kugu dhacayaan adiga oo aan maslaxadaada iyo dantaada uga dib jiraynin khaaquulka iyo shaa'icaadka la wado isla markaa haddana waa inaad ilaalisaa inta aad isdhowri karta isdhowrtaa waxa maanta ilaahay uu muujiyey waa qudradii ilaahay wey waxaa layna tusay waa dacfigii basharka wey waxaa la sheegaa jaynaha madaxweynahoodu maalmihii uu ku dhici doono xanuunkani ka hor khudbaduu jeediyey inuu ku sheegay awood maanta iskaayo hortaagi karta dunida ma jirto muuna odhanin duwal iskaayo hortaagi kara laakiin wuxuu idhi awoodna caabin kartaa ma jirto
dabadeedna ilaahay wuxuu tusay xanuunkaa yara ilima qabatayga ah ee fayraska in lagu imtixaamay. waxaa odhan nin doctor ahaayo qoraa ahaa oo shaami ahaabaa wuxuu sheegay kitaab la yidhaahdo fusuul اlijtimaaciya baa wuxuu yidhi tusaale ahaan wuxuu yidhi waxyaabaha daciifkaabuu ka hadlay. wuxuu yidhi kaneecada waxaa dila waxaa ugaadhsado cuna bahal yaroo baranbarta iyo sida guryaha waxyaabaha ku wareega ama wasaqada iyo qallajista iyo saad u taqaanaa cuna. kuwaana maskaa cuna, maskana abeesadaa cunta, abeesadiina maxay baa cuna, maxaygiina dhurwaa baa dilay, dhurwaagiina libaax baa dilay, libaaxiina maroodi baa dilay, maroodigiina insaan baa dilay. qimat ilkaa'in ilxayi waa insaan wey. haddana waxaa dilaya isagii dhinaca kale markaad ka fiirisa wixii ugu daciifsanaa waa kaneecadii wey. maanta waxaa layna tusayay waa quwada ilaahay, quwad ka sarraysaa inaanay jirin wey. hadday awood leeyihiin way garan lahaayeen xanuunku dhinacu uga yimid iyo dhinaca isaga caabiyaan. waxay qofka muslimkaa marka u tahay inuu ilaahay u cararo. fafiruu ila allah innii lakum minhu nadiirun mubiin baa ilaahay leeyahay. adigoo tawakul cala allah samaynaya, adigoo yaqiininaya shay waliba inuu yahay mid ku iman kara qadaha ilaahay iyo qadarta. waxaad ogaataa shaygii aan kugula dardaarmayaayoo kale shay kasta oo xaaraanihi tadaawi inaanu gelin oo aada ogaato. nebi moxamed wuxuu ihi calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay ummadayda dawo uguma darin wuxuu ka xarimay. adoo xanuunsanaya inaadan waxyaabaha qaarkood isku dawayn karin haddaad og tahay asalkoodii in laga keenay meel xun oo xaaraana. waxaynu leenahay marka dacfigan bashariga ah ee soo baxay qofka muslimka aqo wuu siinaya habaat inuu sameeyo. qofku hadday masiiba ku dhacdo isagoo wanaag ku jira wanaaggiisii bay wanaag u kordhinaysaayoo habaat iyo iimaan iyo yaqiin bay u kordhinaysaa. waxa weeye ilaahay saxaabadiisii buu ka warramay ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum. markii dadku ay ku yidhaahdeen dadkii oo dhan baa idiin soo kulmayoo carab oo dhan baa idinka soo horjeedsatay oo ummaddii oo dhan baa idin laynaysee fakhshawhum fazaadahum iimaanan waqaaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil. qofka muslimkaa markay masiibo dharbaaxdo waa inuu yidhaahdo xasbuna allahu wa nicma alwakiil, sidaa saxaabada iyo qur-aanku inoo tilmaamaya ilaahay inooga sheegay subxaanahu wa tacaala. waa inaadan xaaraan iyo halac iyo argagaxiya. ina alinsaana khuliqa haluucan idaa masahu sharu jazuucan waidaa masahu lkhayru manuucan. dad baa laga soo reebay ila almusalliin, kuwa inaad adigu ka mid noqoto. waxaad ogaataa xanuunkani ma dhici jiray? ha uu dhici jiray. goormuu dhacay? daacunu camwaas baa dhacay 21 hijrada qiyaastii meelahaasay ahayd baan u malaynaya. markuu dhacay daacunu camwaas khilaafatu cumar ibnu khadaab bay ahayd. waxa uu daacunu camwaas markuu dhacay wuxuu galaaftay 30,000 oo saxaabadii rasuulku ay qaarkood ka mid yihiin. waxaa ka mid ahaa baa la yidhaha dadka uu dilay ee ajillada saxaabada abu cubaydata caamir ibnu jaraax amiinu hadihi اlumma. ninka la tilmaamay inay ku soo degtay laa tajidu qowma yu'minuuna biاllahi walyowmi اlaakhiri yuwaaduuna man xaada allaha warasuulahu walow kaanuu aabaahum aw abnaahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum ulaa'ika kataba fii quluubihim اliimaan. waxaa kaloo dishay baa la yidhaahdaa daacunu camwaas uu dilay. daacunkaa khatarta ahay wuxuu dilay baa la yidhahdaa mucaad ibnu jabal. wuxuu dilay dad ajilaah, walaakiin waa laga soo kabsaday unoo intii noolad waa iska sii noolaatay un. dadka inun baa dhiman doonta, inta kale way badbaadi doontaa. innaga weli inamaba soo gaadhin oo soomaaliya weli ma soo gaadhin. soomaaliya weli si la hubo uma soo gaadhin walow wax la sheeg sheegay mararka qaarkood. waxaynu leenahay marka haynoo kordhiyo azmadu haynoo kordhiso ilaahay inaanu laabanno. laakiin intaynu carruurteenni ka fasaxnay jaamicaadka iyo iskoolaadka inay tajamucaad fara badan oo kale sameeyaan oo fasaad badani soo baxo oo xeebaha aadaan oo sinimaayada isugu tagaan oo kubadda cagta isugu tagaan oo meel walba ku urursan yihiin oo aad moodo suuqa magaalada dad xajiyaya inay marayaan oo dadkii laysku fasaxo oo laysku sii daayo malaayiin min albashar ay meel keliya ku kulmi karaan oo isugu iman karaan. taasi dee fasaxee wax taraya noqon maayo. waxaan ognahay marka waan hadalkayga ku gabagabaynaya inaan wada dadaalnay waajib weeye oo qofka muslimkiihi inuu dadaalo waa lagama maarmaan. xadiidta tilmaamaysa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam inuu xaydada ama xajara sixiga ugu horeeyey waxaa ka mid ah laa yuridu almumaridu cala saxiix aw cala almas. xadiidkaas
أو كما قال صلى الله عليه وسلم وحوها يانو تاتابانين oo aanu maxaan ku idhahdaayay sanka iyo afka gelinin oo yaanu dhex gelin oo ku neefsanin qofka xanuunsani ka saxiixay caafimaadka qaba axaadiis badan baa jirta marka oo tilmaamayso in labada xadiis iyo saddexda ka soo qaadanay shay waliba qadaha ilaahay iyo qadartiisa weeye innagana marka waxa la inooga baahan yahay intii suuragala inaynu dadaalno innagoo aan wax baasaysanaynin oo aan halac iyo argagax qaadaynin isla markaa haddana dadaal inaynu samayno waxa la inoo tilmaamayaa waxa weeye waa nadaafadii waxa la inagu leeyahay hay-addii adduunka caafimaadka sheeganaysa in adduunka caafimaadka u haysa inaga walba oo inoomayna haynine dhakhtaran xalay la kulmay baa wuxuu ii sheegay magaalada dhan ee aan maanta ku nool lahay 100 sariirood inaysan oolin hadday yaallaana ka badan inaan laga helayn yacni waxa weeye dad baa adduunka sheegtay inay wax gaadheen oo adduunyada leeyihiin oo meelo sare tagay caajiziin waxay yihiin maanta inay ku gaabsadaan oo yidhaahdaan dadku ha faraxasheen inagu awalba faraha waan dhaqi jirnay si kaamilaho maalintiiba 5 jeer waynu maydhi jirnay dadku wajiyada ha dhaqeen 5 jeer baynu wajiga dhaqi jiray dadku sanka biyaha ha u isticmaaleen oo ha ku neefsadeen awal baynu samayn jirnay dadku waxa weeye ha luqluqdeen oo luqluqiya cadayga ha badiyeen lawla an ashuqa ala ummati la amartuhum bisiwaak buri nabigu calayhi salaatu wasalaam oo uba ina amray cadayge amra wujuub bay culimada islaamka ku tilmaameen amar waajib gaadha yaan amri lahaa buri nabigu calayhi salaatu wasalaam inagoo aaminsan waxaan ilaahay inoo qadaran inaana inagu dhacaynin haddana waxa weeye nebi moxamed nin baa u yimid oo ku yidhi hashan miyaan xidhaa mise intaan sii daayaan ilaahay u tala saartaa waxa uu yidhi icqilha hashaada dabar dabeedna ilaahay u tala saar waynu is-ilaalin oo nadaafadda aynu ilaalin nadaafaddu waa shadri iimaanka ka mida wey nadaafaddu waa wax islaamku ina amray wey nadaafaddu waa shay diinteenna ka mida wey nadaafaddu waa shay laga dhaxlay islaamkii awaa'ilka ahaa ee nebi moxamed u horreeyey calayhi salaatu wasalaam nadaafadda aynu ilaalinno iyadoo shadri iimaanka ka mid ah oo waxa weeye aynu ilaalinno nadaafadda guriga iyo nadaafadda musqusha iyo nadaafadda biyaha anigu dhakhtar ma ahi laakiin waa siday diintu ina amartay inaynu nadaafadda ilaalinno wey inagoo nadaafaddii ilaalinay inaga oo qaadanay waxa la wixii aynu samayn karnay haddana ilaahay baynu ku xidhnaanaynaa masalada qaybteeda dambe iyo fiqigeeda iyo salaada jamca iyo jamaacada iyo guryaha ma la joogi karaa ma laga bixi karaa mowduuceena qaybta soo socotaynu kaga hadli doonaa ilaaha idamkiis wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh